talyaaniga ayaa ilaa iyo 16 milyan oo qof karantiilay isagoo isku dayaya xakamaynta faafinta caabuqa cusub ee coronavirus. qof walba oo ku nool gobolka Lombardy iyo 14 kale oo gobol oo bartamaha iyo waqooyiga dalkaasi ku yaala ayaa u baahnaan doona ogolaansho uu ku soo gala ama uu kaga baxo goboladaas. magaalooyinka arintani ay saameysay waxaa ka mid ah go'aankani uu saameeyay magaalada Milano. iskuulka, goobaha jiimka iyo meelaha lagu dabaasho ayaa xirnaan doona iyadoo isu imaatinka bulshadana la hakiyay sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaas Giuseppe Conte. tallaabooyinkan ayaa sii socon doona ilaa 3 Abriil. talyaaniga waa dalka ugu daran dalalka Yurub ee caabuqu uu sida baan u saameeyay waxaana laga soo sheegayaa korar tiro badan dadka uu soo ritay. horaantii toddobaadkan dawladda talyaaniga ayaa ku dhawaaqday in muddo 10 maalmood la xiro iskuulada iyo jaamacadaha dalkaas ku yaal. khasaaraha dhimashada dalka talyaaniga ayaa gaartay 230 iyadoo ay saraakiishu sheegeen in ilaa iyo 50 ay caabuqa u dhinteen muddo 24 saac gudahooda. tirada kiisaska la xaqiijiyay shalayto ayay sare u sii kacday in ka badan 1200 qof iyadoo gaartay 5883. waxaanu doonaynaa inaanu damaanad qaadno caafimaadka dadkeenna. waanu garwaaqsannahay in tallaabooyinkani ay caqabado badan ay dhalin doonaan, mararka qaar kuwo yaryar, mararka qaarkoodna kuwo aad u badan, balse waxaa la joogaa waqtigii aan qaadi lahayn mas'uuliyadda, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha talyaaniga Conte.